bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka waa axad ay taariikhdu ku beegan tahay 28 bisha 6 ee Juun sanadka 2020 qodobada wararka ugu waaweyn ee maanta aan idin heynana waxa kamid ah Puntland oo filla Soomaaliya ugu hanjabtay inay ka go'ayso Soomaaliya iyo khilaafka madaxtooyada oo yeeshay wajiyo cusub Xasan Sheekh oo weerar ku qaaday Xaliimo Yare iyo madaxweyne Farmaajo ka shifayna ujeedka warbixintii guddiga doorashooyinka qaranka qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo war xasaasi ah ka soo saaray hadalkii Xaliimo باق دغدغ ahna u diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya khilaaf cusub oo ka dhex qarxay labada gudoon ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiye Mursal oo jawaab kulul siiyay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka shifay sirta ku jirta go'aankii guddiga doorashooyinka ee shalay ee shaaciyeen madaxweynaha Puntland oo fariin hanjabaad ah u soo diray gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye Mursal oo sir badan ka shifay Kenya oo arin halis ku ah nabadgelyadeeda ku eedeysay ciidamada daacadda oo ah wasiir Janan iyo 10 qof oo la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen magaalada Muqdisho kadib rasaastii loogu dabaaldegayay maalmaha xorriyadda intaas aad daawateen waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee wararka channelka xulashada wararka haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelka subscribe inoo saar si aad u hesho macluumaadka warbixinada iyo wararka joogtada ah ee aan halkan soo gelino mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa Puntland ayaa filla Soomaaliya waxay ugu hanjabtay inay ka go'ayso Soomaaliya iyo khilaafka madaxtooyada oo iminka yeelanaya wajiyo cusub baarlamaanka dawlad goboleedka Puntland ayaa maanta si adag uga dooday matalaada gobolka Banaadir ee golaha aqalka sare laga siiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah mudanayaasha oo golaha ka dhex hadlay ayaa dawladda federaalka Soomaaliya madasha xisbiyada maamulada Hirshabelle Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug waxay ku eedeeyeen inay fuquuqayaan Puntland iyo Jubbaland oo iyagu ka biyadiidsan matalaada gobolka Banaadir uu ku yeeshay golaha aqalka sare xildhibaanada qaarkood ayaa soo jeediyay in Puntland ay ka tashato Soomaaliya inteeda kale isla markaana ay ku dhawaaqdo madax banaani waa siday hadalka u dhigeen iyaga oo madaxtooyada Soomaaliya ugu hanjabay inay gebi ahaanba Soomaaliya inteeda kale ka go'i doonaan ila baarlamaanka ka agdhow ayaa waxay sheegeen in goluhu uu qaraar ka soo saarayo matalaada gobolka Banaadir sidoo kalena laga yaabo in xukuumadda Puntland iyaduna ay cadeyso mowqifkeedu ku aadan arrintan oo shalay baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka ay ansixiyeen filla Soomaaliya ayaa iminka ay lagu hala sii galaysaa khilaafyo hor leh kuwaas oo haatan yeeshay wajiyo cusub marka loo fiiriyo khilaafka gudoonka aqalka sare iyo midka maamul goboleedyada qaar sida maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu aad u dhaliilsan dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Sheekhna waxa uu weerar ku qaaday Xaliimo Yare iyo madaxweyne Farmaajo waxa uuna banaanka keenay ujeedka warbixintii guddiga doorashooyinka qaranka ee ay shalay ku dhawaaqeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay shirkiisa jaraa'id xaaladda dalka gaar ahaan arrimo la xiriira doorashooyinka 2020-2021 Xasan Sheekh ayaa soo hadal qaaday warbixintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee ay shalay dhageysteen xildhibaanada golaha shacabka isaga oo dhaliilay warbixinta oo lagu soo aadiyay xilli adag oo lagu jiro kala guur sidoo kale waxa uu tilmaamay in warbixinta guddiga ay u hoosaasinayso muddo kordhin kale sida uu hadalku u dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay in laga gaabiyay arrimaha doorashooyinka isla markaana Farmaajo uusan sameyn dadaalkii looga baahnaa isagoo eedeen kala dul dhacay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sidoo kale weerar ku qaaday gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Yare oo uu sheegay inaysan dhexdhexaad ahayn isla markaana ay ku dhex milantay xukuumadda hadda jirta dhinaca kale waxa uu soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ee ansixinta matalaada gobolka Banaadir isagoo xusay in tallaabo wanaagsan oo bogaadin mudan ay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyn Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo jeediyay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya laga rabo inay la timaado qorshe cad oo ku aadan doorashooyinka 2020-2021 wuxuuna carabka ku adkeeyay inaysan marnaba aqbali doonin wax muddo kororsi ah qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa war xasaasi ah ka soo saaray hadalkii Xaliimo Yare waxa ayna baaq degdeg ah u direen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay hanaanka doorasho oo ay soo bandhigeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo ay hogaaminayso Xaliimo Yare kaasi oo lagu gaarayo doorashada tooska ah ee Soomaaliya ilaa bilowga bisha Maarso ee sanadkan soo aadan qaramada midoobay waxa ay dhinaceeda Soomaaliya ku boorisay in la yeesho wada tashi dhexmara hogaamiyaasha siyaasadda si loo tiigsado wadar ogal sidii hore loogu dhaqaaqi lahaa iyo shirka la filayo inuu dhexmaro dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyadoona sidaas ugu baaqday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kale wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa ugu hambaliyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran isaga oo ku adkeeyay baahida loo qabo is-afgarad siyaasadeed oo ku salaysan mabaadi'da la isku raacay in loo furo saaxada siyaasadda
laga soo bilaabo min xulasho ilaa doorasho iyo doorashada waqtigeeda. hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey oo shalay baarlamaanka ka horjeedisay warbixinta doorashada 2020-2021 kaas oo ahaa mid la wada sugayay. gudoomiye Xaliime Yarey ayaa cadeysay in doorashada habka diiwaangelinta ay ku dhici karto muddo 13 bilood gudahooda laga bilaabo bisha July 2020 ilaa iyo Agoosto 2021. khilaaf cusub ayaa ka dhex qarxay labada gudoon ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo oo gudoomiye Mursal uu jawaab kulul siiyay gudoomiyaha golaha aqalka sare. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa u jawaabay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxaana muuqata in cirka uu isku sii shareerayo khilaafka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. gudoomiye Mursal ayaa sheegay in Cabdi Xaashi uu horay golaha shacabka ugu hor cadeeyay inuusan ogolaanaynin in labada aqal ay wada shaqeeyaan iyadoo ay jirtay in labada gudoon ee baarlamaanka Soomaaliya ay wada saxiixdeen inay wada shaqeeyaan. sidoo kale Mursal ayaa sheegay in golaha shacabka ay sharciyan leeyihiin hogaaminta doorashooyinka dalka isla markaana ay waajib tahay in 4 biloodba mar uu hor yimaado guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka balse uusan jirin sharci ku qasbaya inay hortagaan golaha aqalka sare. isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay hadal jeedintii gudoomiyaha aqalka sare halkan ayuu ku sheegay inuusan marnaba ogolayn in labada aqal ay wada shaqeeyaan. khilaafka labada dhinac ayaa haatan waxa uu noqonayaa mid sii xoogeysanaya mana jirto cid soo kala dhex gashay. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa kashifay sirta ku jirta go'aankii guddiga doorashooyinka ee shalay shaaciyaan. madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo u hanqal taagaya madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay mowqifka ku aadan siyaasadda iyo marxaladda kala guurka ah ee dalka haatan uu ku jiro. Mr. Guuleed ayaa ka digay arrimo ku hoos jira go'aankii muddo kordhinta loogu daray madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ay ka digayaan xaalado loo horseedayo dalka taas oo ah qalalaase iyo xasilooni darro siyaasadeed. gudoomiyaha xisbiga Sahan Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu sheegay inay muhiimadu tahay in doorashada xilligii lagu ballamay lagu qabto. waxa uu sidoo kale banaanka keenay in markaasi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay la safan yihiin xukuumadda hadda jirta ay hogaamiyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. madaxweynaha Puntland waxa uu fariin hanjabaad u soo diray gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye Mursal oo sir badan ka shifay. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shalay sheegay inuu u soo hanjabay mid ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira. Mursal ayaa sheegay in madaxweynahan oo uusan magaciisa xusin balse xog aan helnay ay sheegayso inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu u soo diray fariin uu ku dalbanayo in lagu joojiyo shaqada golaha shacabka ama uusan imaan doonin kulanka uu cilaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. gudoomiyaha oo ay ka muuqatay caro ayaa sheegay in fariintan ka timid mid ka mid ah madaxweynayaasha kaasi oo ah madaxweyne Dani loo soo marsiiyay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxaana arrintaasi ku tilmaamay dhaqan aad u xun. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in maamulka Puntland ay xoog iyo xoolaba geliyeen sidii u hor istaagi lahaayeen matalaada gobolka Banaadir iyaga oo sheegay inay si toos ah ugu lug lahaayeen. Kenya ayaa arrin halis ku ah nabadgelyadeeda ku eedeysay ciidamada daacadda waa wasiirka amniga Jubbaland ee Janan. mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda Kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay ciidamada uu wato wasiirka amniga maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan inay qalqal amni ka wadaan gudaha magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Cumar Maxamed Macalin oo ah xildhibaan laga soo doorto bariga Mandera ayaa sheegay in ciidamada Janan ay hub ka iibiyaan qabiilada ku nool magaaladaasi isagoo arrintaasi nasiib darro ku tilmaamay. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintan ay sababi karto isku dhacyo hor leh oo dhex mara beelaha dega halkaasi oo marar badan dagaalamay. xildhibaanka ayaa sidoo kale soo jeediyay in ismaamulka Mandera laga saaro wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada uu wato si loo xasiliyo amniga magaaladaasi. saraakiil ka tirsan laamaha amniga Kenya ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan shakhsiyaad hub ka iibinaya dadka deegaanka. wasiirka amniga Jubbaland Janan ayaa tan iyo markii uu ciidanka dowladda kula dagaalamay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ku sugan qaybo ka mid ah magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari halkaas oo uu ka wado abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan. si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan ciidamada wasiir Janan ee ku sugan Mandera lagu eedeeyay inay dhac iyo kufsi ka geystaan gudaha magaaladaasi.
ugu dambeyntiina 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen magaalada Muqdisho kadib rasaastii loogu dabaaldegayay maalmaha xorriyadda. Habeenkii 26 Juun magaalada Muqdisho waxaa looga dabaaldegayay xornimada gobolada waqooyi ee Soomaaliya 60 sano ka hor, waxaana rasaastii loo adeegsaday dabaaldegaasi ku dhaawacmay dad shacab ah. Inta la xaqiijiyay ilaa 10 qofood ayay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen rasaastii habeenkaas loogu dabaaldegayay xuska 60 guuradii xornimada gobolada waqooyi, waxaana jirta warbixin laga soo ururiyay xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho. Isbitaalada Madiina iyo Daarushifa ayaa laga soo xigtay in wadar ahaan 8 qofood loo keenay oo ay ku jiraan canug yar iyo hooyo da' sidoo kalena taliska booliiska ayaa qirtay in rasaasta la riday ay waxyeelo badan geysatay. Dadka ugu badani waxay qabaan in rasaastaas ay rideen ciidamada dawladda, balse waxaa la og yahay in hubka cid waliba gacanta ugu jiro isla markaana aan la xaqiijin karin gacanta rasmiga ah ee dhibaatadaas geysatay. Habeenkii 26 Juun ayaa waxaa magaalada Muqdisho laga maqlayay dhawaqa rasaas aad u fara badan, taas oo la sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu dabaaldegayeen 60 guuradii ka soo wareegatay markii gobolada waqooyi ay xornimada ka qaateen gumaystaha Ingiriiska. guud ahaan daawadayaal wararkii waad kala socoteen channelka xulashada wararka intaas ayay ku dhan yihiin. wararkooda xiga intaan ku kulmi doono dhammaanteen isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.